todobaadkii ugu dambeeyay waxa baraha bulshada Soomaalidu isticmaasho qabsaday wax ka beddelay shirkadda Meta ku samaysay abka WhatsApp taasoo shirkaddu sheegtay in akoonkaaga WhatsApp aad ku isticmaali karto moobilo fara badan isla markaasna xogtaada lagula wadaagi karo adigana aad qof kale u share garayn karto arrintan ayaa keentay saameyn ballaaran oo dhinacyo fara badan loola kacay balse shirkadda ayaa ku sheegtay ujeedada arrinkani inay shirkadaha waaweyn ku isticmaalaan xogta company-ga isla markaasna ay u jawaabi karaan macaamiil fara badan hase ahaatee dadka xiriir wadaagta ah ama dadka aan jeclayn in xogtooda qof kale ay la share gareeyaan ayay arrintani saameyn ku keentay qaar ka mid ah dadkaasi ayaa la hadlay Horyaal TV arrinta aad baan soo dhaweynayaa iyadoo shirkadda Meta ay soo kordhisay in WhatsApp-ka lagu share gareyn karo ilaa 4 mobile oo kala duwan waxa uu mudan cid la share gareey gabdhaha ninka u share gareyn waaya anigu waxaan u arkaa fulay ninkaasi waa fulay baan leeyahay waxaan u arkaa anigu waxaan inay dhiiqo tahay oo anigu maalintii baan WhatsApp-ka iska saaray la yidhi waxaasa jira email la soo digo emailadaasaan iska isticmaalaya waayo daadir waxaan fiista lagu gashanaya oo laga xidhiidhsanaya unde marka waxaan xitaa dadkan waxay isku dhufanaysaa dadka xaaslayaasha oo waxa laga yaabaa guryo badan inay dimiso laakiin iyagu ujeedada ay danta ay ka lahaayeen de waxa weeyaan danta ay ka lahaayeen waxa weeyaan in shirkadaha iyo waxaas ay ku ganacsadaan laakiin hadda dee dad badan buu saameynaya kolley waxaan filayaa de in sidaas oo kale laga guuri doono dee والله رهانت شركة ميتا معلومات برا بتشوف حسيتي دين وصاب كل ولا شيء قرن كريو رهانت أنا قد تاو حنوار كأي فائدة تهاي كومبانية دخل جناحسي وين الشركة لها كشيء أو فائدة وتيجوا وتوحي جناحسي وكل شيء قرن كريا لكن سومالو حولك على لأنك حرير كهوش يولك على لكن وحنا مسنا أنا قد قف يقول ما أنت اللي كجا يسود رصاب كا إن أنا مركي هرب دي أنا وحباني نقدر حنا نتي يعني مسنين بقى marka maanta qof guuraad oo saab soo diro waxa dhaantay baan aniga likiga iska hayso qofkii dahalkiisa iskaga reebo ama ka hadhay xiriirkiisa marka wallahi ilaahay baa run jacayl u sheeg garan karayo ka gabdha ahaan way noo fiican tahay waxa ogaanaynaa xog badan oo la qarinaayay oo ragga ay sameeynaayeen marka inanka aasaa wadaaga aatiin hada arkaysid Facebook WhatsApp-kiisa waxa ku jira iyo waxa ku soo kordhaya waa arrin fiican waan soo dhaweynayna waniyo saddex hablood la shaqaysiinaya waxaan ku riiday mid kasta baan bacdu cuniyay waatiga la dhimaan weyday soo share gareeyo oo magaranaysa soo dir bal waxaagano marka shirkadaas ablehayna mid kala geysay aniguna iskaga tagay cari awgeed Telegram baan isticmaalaa marka shirkadaasi waxaan ku ri dhankiida lagu talagalay ganacsiga Soomaalidii waxaan ku ri umay qaadan dhankii xiriirka buu la boodiyay dhankii negative-ka markana waxaan ku ri Soomaalidii oo intii iska bulodayna dadkii kala geysay shirkadaasina waxaan ku ri dadkii kala geysay marka waxaan ku ri halis way shirkadaas halaga guuray weelay dhalinyarta anigoo kale hadda markaan iska soo qaado aniga hadda wax negative weyn ugu ma lahan awal bad nin waxaan ahaa waxa weeye haasla oo meel iska degan dhaqdhaqaaqayga yaraado marka reerkaygu oo og yihiin anna way soogahay wax mushkil oo weyn ma jirto saameyn weyn anigu ma lahan laakiin dadka aadka uga cabanaya waa dadka dhowrka qof isku dhaxwada oo qofba wuxuu sheegaya kaasay saameyn ku leedahay asagoo qof walba uu ka dalbanayo inuu u sheego userka ama passwordka uu sheego si ula socdo xogtiisa marka dadkaas caqabada ugu weyn ay ku haysaa haddaba daawaday saameyn intee leeg bay arrintani adiga kugu keentay mase jeceshahay in xogtaada aad qof kale la wadaagto ama aad la share garayso